caqabadaha u baahan in la wajaho wasiir ma ka mid yihiin ragga isku deegaanka tihiin oo waliba dadka qaar ay leeyihiin Juxa wuxuu fursad ka helay saaxiibo kale irdhoobay dhexdooda fursad ka helay raggaasi caqabadaas sidee u wajahaysaa ayaga السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم ونكسن دمان خيارتنا داونا الساعة وحنا مات هالكن ورئيس كلية لنا وسيرك وسارة دارمها جودها ديمقراطيينته يفدرال كبنتلان وسير عبد الفارح سعيد جحا وسير سودو وجهرين وعن كلام هاد علينا إن أنا جاي أشيد ورئيس جننا مات حفيزك كلية لنا هو اللي بيتهاي مالتي كواد واد حفيزك وصل شغلتك سودو وسير مركواد وحنا ربعنا كويديو وسير جحا وحوكم ده رجي مدحون سيد عبد الله الدنيا لا ترتمي sanadkii dhaweeyay madaxweyne markuu xilka ku guuleysanay xilligan oo xukuumadda madaxweynaha ay ka harsan tahay sanadiyo bilo muxuu ahaa wasiirka oo qaatay wasiir Juxa baa la isweydiinaya maxaa arinta dhaliyay waa mahadsan tahay dhalaad baa mahadsan tahay walaal horta aan waxaan kamid ahay dadka siyaasadda ugu jira aragtida oo fikri aragti kale waan tartamay 2019 systemka qaabka shiraan ku tartamay waxba kuma helin waan ka dooday waxba kuma helin inta ka dambeysana diyaano reer Puntland aan ahay waxaan u advocate garanayo u doodayay in dadka talada dib loogu celiyo haddana waxay iga tahay inaan gudo waajib ogahay dawladda waxa u dhiman sanad baa u dhiman waqtigeedii iyo xooga waliba shaqada aniga aan hayo 6 bilood 7 bilood bay tahay inay ku kala timaado marka sababta aan hadda u imi waxa weeye inaan geediga reerka wax ka raro oo meesha aan isiraado waxaan dibadda la taagnaa aan ku doodayay ee aan qabay hadii la igu yiri taladeeda wax ku yeelo sidaas ayaan ku soo galay geedigaasi muxuu yahay geedigaas waxa weeye Puntland inay ka goorto xirada ay degan tahay sidaad og tahay Puntland hadda waa 24 sano jir himilo ay 24 ka sano ahayd meeshan maanta aan deganahay inaan ka guuro هملك لي ما هنا والدستوري تذكر تاسي سنوين والدستوري إن دخلك وآدو دور الشقف يعضه دولة يقول رسوا حي صدق سنة كبعدي إن ذلك سيدا لو قال دور شلو قال يا حيد أفر إلى 20 سنة هندي سد دستورية والسوقي وقبيعها وهيد إلا فليو هملانها شرعنها دستوريها وهي هرت إن ديمقراطية هذا كيد جالس مركو حويه إن دور شل هذا وفي عضه in golayaasha deegaanka la soo doorto oo dadka talada dib loogu celiyo arinta marka muhiimka ah waxa weeye way ay muhiim u tahay doorashadan kasoo inay dastuuri tahay himilana tahay 24 sano ka horna ay ahayd in la qabto doorashadani waa ka jawaabida nidaamka waa hirgelinta nidaamka federaalka ah ee Puntland hormuud ku tahay oo lagu asaasay oo himiladeedu bay u taagan tahay 24 sano ka bacdi hadana anagu golad deegaan dooran karin nidaamka federaalka maxashka la saaraya mana ku doodi karto Puntland dawlad dhexe la murmaysan noqon kartaa dawladnimadayadii iyo daadajintii maamulka uu ka dhigan yahay marka waa hirgelintii nidaamka federaaliga ah bay doorashada golayaasha deegaanku ay kamid tahay waxay kale oo kamid tahay wadib heshiisiin doorashadu wadib heshiisiin 24 sano ka bacdi dalku kuma jiri karo xira ka baxsantii qaanuuniga ahayd ee dastuuriga ahayd iyo himiladiiba in lagu dhex wado marka waxyaalahaas oo dhan bay muhiim u tahay waayo wasiir 4 sano oo hadda xukuumadani jirtay in kastoo aadan kamid ahayn oo maalintii kuwaad baad xafiiska joogtid haddana 4 sano waxaa hirgalay 3 degmo oo gole deegaan la hirgeliyay 47 degmo ayaa haray 47 degmo hal sano bal isqabadsay horta Rome maalin lagu ma dhisin 24 sano waa la sugayay sanadkaana 4 sano 3 degmo tiro already waa la sameeyay inta haddeerna waqti baa haray barnaamijka golayaasha deegaanka waa la wadayaa intii ka hirgashaa laga hirgelinaya himiladu waxa weeye golayaasha deegaanka in dadku ay soo doortaan oo bahalka guddiga doorashada jira wuxuu u jiraa inuu golayaasha deegaanka uu sameeyo marka caqabadaha ma tirin kara anagu haddaan dhahno maanta dhan waqtigaas ay urgelinaysaa anagu waa dhaqaajinaynaa geediga golayaasha deegaankana doorashadana waa la aadayaa meeshii ay gaartana taladaas maalinteedan gaaraynaa marar badan waxa dadku arkeen wasiir Juxa oo wuxuu taagan yahay maxfalo laga hadlayo dimuqraadiyadda oo ololeynaya maanta xafiiskii dimuqraadiyadda inuu dhaqaajiyo laga rabay ay joogtay arrimaha gudaha ee dimuqraadiyiinta maxay yihiin qodobada ku qorsheysan oo 1 iyo 2 oo hortibinta leh waxa ugu muhiimsani waxa weeye barnaamijkan dad badan baa wadaaga
oo ay tahay inay wada hirgeliyaan dawladdu waa ka mid xafiiskayga shaqadiisaan kuu sheegay ugu muhiimsan aniga maanta soo fariisay waa kow laakiin dawladda waxa waajibaadkeedu yahay shaqadeeduna tahay anigana mas'uuliyaddeeda ay tahay oo aan magacayga miiska ku saaray oo rahmadda ku saaray dawladdu coordination kay leedahay barnaamijka guud ahaan waxa laga rabaa political commitment iyo financial commitment baa laga rabaa barnaamijka inay geliso waxa laga rabaa faragelin la'aan inay ku samayso cidda ay qosayso oo jawi lagu wada qanacsan yahay ay samayso barnaamijkan waxa hogaaminaya oo qaanuuniyan iyo farsamo ahaanba Puntland uga mas'uul guddiga doorashada ee ku meel gaarka tibig barnaamijkeena tibig baa leh waa dastuuri waa qaanuuni isaga farsamo yaqaan ah isaga adduunku kala macaamila isaga aynu u xil saaran waxa kaloo jira dawladda oo la roolalka aan ku sheegayo ah inay coordinate barnaamijka inay jawi abuurto inaysan faragelin inay commitment dhaqaale iyo amni iyo siyaasadeedba ay siiso waxa kaloo muhiim ah in international community ay qanaaco ku qabaan barnaamijkan oo jawigaas oo noqdo waxa kaloo muhiim ah in saxaafadda iyo ururada bulshada iyo hareeraha kala jooga ay kalsoonida arkaan aniga shaqadayda marka waxa weeye inta aan ku sheegay iyo jawiga inaan abuuro dadkana ka dhaadhicino ka garnaqsano tareenkana aan dhaqaajino wasiir adigoo kaashanaya ogaalkaaga iyo qorshahaaga labadaba xukuumaddu sidee u maareyn kartaa ama ay u hirgelin kartaa dhamaystirka golayaasha deegaanka iyadoo aan muddo kordhin la aadin waa hirgelin kartaa barnaamijka muddo kordhintu horta waxa muhiim dadku inay fahmaan guddiga doorashada inoo jooga tibig shaqadiisu waa golayaasha deegaanka wey doorasho madaxweynena maaha mid baarlamaanna maaha talaasina miiska ma taalo waxa miiska saaran hadda waa golayaashii deegaanka ee Puntland mandate-ka uu ku shaqeynayo guddiga doorashada iyo midka aan ku shaqeynaynaana waa ka marka wax aan joogin maalinteeda hala gaaro maalintaas waxa hala karo laakiin ku darsasho wax la yaabo miiska saaran ma jirto dawladdaana wax dana oo gaar ka ah kasabkow inuu hirgalo barnaamijkaani oo miiska u saaran ma jiro juxana taa qayb kama aha qayb barnaamij noocaas oo kala waayahay muxuu noqonayaa qorshaha deegaamada ka maqan gacanta Puntland maadaama la rabo in dadku iyagu istoortaan Puntland aanay deegaamo badan oo dastuurka ugu qoran gacanba ku hayn barnaamijku wuxuu ka hirgalayaa meesha ay suurtagal tahay inuu ka hirgalo xilligan si kastaba ha ahaatee meeshii aysan suurtagal ahayn inuu ka hirgalo xilligan haddii salaad waqtigeeda la tukada kuwa maqan talama laga leeyahay wasiirka arrimaha gudaha maanta tahay talo waa laga leeyahay oo Puntland wax gacanta kugu jiray waxaan kugu jirinba waa Puntland laakiin waxaan ka hadlaynaa golayaashii deegaanka doorashooyinkii golayaashii deegaanka Puntland ma ka hadlaynaa doorasho waxay ka dhacaysaa meeshii ay suurtagal tahay maanta inay ka dhacdo wali idinka iyo tibek iyo xitaa madaxweynuhu ma ka wada hadasheen tiraaca yimana degmooyin golayaashii deegaanka laga qabanayo wixii farsamaha oo noo dhiman anigu maanta xafiiska imi waad ogtahay wixii farsamaha oo anaga noogu dhiman hoos sida meelaha looga qabanayo taladaas dawagelina anaga qorshaysanayna arrin kala taagan ee wasiir oo inta badan howlweyn la xiriirta arrinta xuduudaha degmooyinka Puntland maadaama gobolka la soo kordhiyay degmooyin kale ay soo kordheen oo meelihii laba gobol hal gobol saddex gobol laga dhigay sida bari oo kale to sanaag oo kale laba gobol laga dhigay arrintaas xuduudaha maxaa ka yeelaysa warbixinta la siiyay waa diyaar soo hadimaha gobolada Puntland oo dhan waa la diyaariyay degmo walba iyo mid kale intii u jirto iyo inta tuulo hoos timaada iyo waxa soo dhan waa diyaar marka warbixinta la siiyay taas weeye laakiin guddiga doorashada ayay tahay inay horta soo bandhigaan oo ku dhawaaqaan markii la isla finalize garayo la isla arko tala kama dambaysa laga yeesho amuraha inay ku dhawaaqaan marka amurahaas wixii farsamo ku xiran oo dhan dawlad wajahaya waayay dhanka kaleeto wasaaradda arrimaha guduhu waxay u ololeysaa oo ay u qareentaa ururadu inay helaan miisaaniyad ay ku yeeshaan miisaaniyadda kab maadaama la rabo inay ololayaan doorashadii ka mid noqdaan sidaynu ognahayna wax miisaaniyadda ugu jiraan ma jiraan arrintaasi caqabad ma ku noqon kartaa doorashada iyo in la helo ururo tartamaba ma noqon kartaa caqabad qorshaha dawladuna waxa weeye in doorashadu ay noqoto doorasho lagu tartami karo ururada siyaasaddu ay ka qayb qaadan karaan طبعا واحد ميزانيد ugu jiraan ma jiraan I think dastuurkeena sida uu sheegayo saddex xisbiyeed oo ugu dameeya ayaa miisaaniyada soo gali lahaa laakiin hadda ururada siyaasadeed baan haysanaa ururada siyaasaddu ka bay u baahan yihiin iyo taageero gacmeed bay u baahan yihiin xagga internationalkana waa uga baahan yihiin xagga dawladana waa uga baahan yihiin waxana la harimayno aniga taladayda wixii lagu siyaadin karo si ay u noqdaan ururada siyaasadeed oo howlgali kara waayahay wasiir jixe wuxuu soo noqday wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya
wuxuu maanta fadhiyaa wasiirka arrimaha gudaha Puntland ma kor buu socdaa mise hoos shaqo gudanaya kori hoos meesha waa laga shaqeyn karaa ogow Soomaaliya waxa laga dhisay hoos Puntland baa la sameeyay state-ka ugu horeeyay ahayd federaalka ay ahayd iyada hormuud ka noqotay dawlad federaal la dhiso fila Soomaaliya sida loogu noqdo waligeedba haan gumba laga tolaa anigu ku faraxsanahay meeshan ka shaqeynaya maanta shalay waxaad sheegtay wasaaradda uu aad qaban lahayd inay tahay maxaad ku xulan lahayd mid kaliya aan qaban lahaa way yabaan midaan waxaan ku xulan lahaa waxa weeye waxa aan aaminsanahay xilligan ee aan dibadda la taagnaa iyo waxa priority-ga ayaa iswaafaqay dawlad sanad u harsan yahay waliba aniga shaqadayda miiska ii taala ay 6 bilood 7 bilood u harsan tahay waad garan kartaa waxaan u galay anigu siyaasadda waxaan ugu jiraa aragti baan ugu jiraa qadiyad baan ugu jiraa mission kaas aan rabaa inaan qayb ka noqdo intaan beerin karaan beerinaya awalba dibadda aan ka qaylinayay hadda ilaahayna waa tawakaleynaa dadkana waxaan weydiisanaynaa taageero iyo kalsooni caqabadaha la tiriya caqabadaha inaan tirino oo baqno maaha caqabaduhu noloshoo dhan bay jirayaan meel walbay noloshaada ay hor yaalin doorasho kaliya kuma xira caqabadu markay timaado waa inaad la macaamishaa oo xalka qayb ka noqotaa laakiin haddaad maanta dhan tirsid waxaa jira caqabada hadda caqabad ka baqi ayaad noqonaysaa marka caqabadaha in la wajahay u baahan yahay caqabadaha u baahan in la wajaho wasiir ma ka mid yihiin ragga isku deegaanka tihiin waliba dadka qaar ay leeyihiin juxa wuxuu fursad ka helay saaxiibo kale irdhoobay dhexdooda fursad ka helay raggaasi caqabadaas sidee u wajahaysa ayaga saaxiibadan waxaan leeyahay dalku doorasho aadaya dadka cod la weydiisanaya talada dadka lagu celinaya kalsooni qaba saaxadda imaada barxadii gorway soo istaaga dadka cod weydiista ugu dambeyn wasiir juxe muddooyinkii ugu dambeeyay Puntland ku sugnayd waxaad qaadi jirtay waraysiyo la xiriira arrimaha taariikhda iyo arrimahaas la xiriira waraysiyada masiibadaysa mise kaamirada meel bas ka dhigaysa waraysiyada wixii aan wadi karo oo marka aan balfin gaar ah keenayn waa wadaya ama interview aan qaadi doonaa haddaan doonana qaar baan soo sii deynayaa laakiin xooggeeda hadda dimuqraadiyeed baa ku gudban dimuqraadiyadda dadku waxay leeyihiin oo niyo jixi dimuqraadiyaddu haddii ay ka dhab tahay markuu banaanka joogay muxuu urur siyaasadeed u samaysan waay wallahi waa su'aal fiican anigana waa isweydiiyey ogow haddaan urur ku beeri lahaa waxaan noqon lahaa nin meel ku lifaaqan hadalka aan dhahana waxaa ka muuqan lahayd meesha anigu hadda hadalkii aan u duday dimuqraadiyadda kulligood baa ana codkaygaaba ka dheeraa marka kuma ay habboonayn inaan khaanad galo oo aan koobnaado hadalkayga meelo kale ay ridiyaan marka hadday ugu habboon tahan qaba wali lama samayn maxkamadda dastuuriga ah doorashooyin noocaas marka la qabanayona muhiim bay u tahay madaxweynuhu inuu soo wado yeen kale maxaad ka ogtay maxkamaddii sare madaxweynuhu waa soo wadaa wuxuu sheegay kalfadhiga inuu hor keenayo gudoomiyaha baarlamaanka hadda sheegay dalku maxkamad laan ma noqon karo waxyaalahan oo kale sharciyaan ma socon karaanba marka taas waa imanaysaa farjiin waxaan gaarsiinayaa shacabka 24 sano ayaynu sugaynay inaan guuro waa dastuurina waa ahayd himeelana waa ahayd shaqo laga gaabiyay iyo sharci la hareer maray labadaba waa ahayd wax walba aan isugu geyno fursadda inaan qaadano caqabad waxayna ka hor yimaadana aan ka wada tashano aan ka wada hadalno aan ka wada socono way aad baa mahadsan tahay wasiir cabdi faarax juxa wasiirka arrimaha gudaha dimuqraadiyadda iyo federaalka dowladda Puntland aad baa mahadsan tahay